الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشركي سقال يسديتنات كتاب كني حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله ظهور العلم. هل كان الشيخ وحكوشي حكمة عوان لوغا دغاي ظهور العلم علمك يا ظاهر ديس موقشديسا وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. haddii cilmigu uu ka daahiro meel magaalo cilmigu uu ka daahiray uu ka muuqdo dhaqankii islaamku ka muuqdo qalla sharu fiiha waxaa halkaa ku yaraanaya shartaa ku yaraanaysa. waidaa khafiya alcilmu haddii cilmigu qarsoomo oo la arki waayana waxaa muuqanaya shar iyo fasaad baa meeshaa degaya. waana xaqiiqo weeye. islaamku isaga ayaa laysku ilaaliyaa, isaga ayaa wax dhowra, isaga ayay nabadgelyadu ku jirtaa. ayib, iclaamu lmuwaqiciin can rabbi alcaalamiin kitaabkiisii buu ibnu qayim macluumadaa ku sheegay. haddaba falcilmu naafic waalcamalu saalix, cilmiga naafica ah oo wanaagsan oo waxtara iyo camalka saalix ee wanaagsan, labadaa shay oo labaduba sacaadada iyo liibaantii reereynta binu aadamkan addoonku labada arrimood bay ku jirtaa. mana badbaadana qofku ma badbaadi karo ilaa labada arrimood inuu la yimaado moogiya, cilmi naafica iyo camal wanaagsan inuu ilaahay siiya moogiya. qofkii rabbi uu ku arsaaqa haddaba labada arrimood, alcilmu naafic waalcamalu saalix, qofkaasi waa liibaanay. waa qofkaasi wuxuu noqonayaa qof liibaanay buu noqonaya oo haniimaystay. qofkii laga xarimo oo labada arrimood waayana khayr oo dhan baa laga xarimay. labadaas arrimood marka la yidhaahdo waa labada arrimood oo dadku ay u kala qaybsamayaan ilaa marxuumin wa maxruumin. marxuum qof loo naxariistay oo ilaahay waafajiyey labada arrimood, iyo maxruum laga hoojiyey naxariista ilaahay laga hoojiyey. وبهما يتميز البر من الفاجر. qofka albaru min alfaajir, yacni labadaasayna ku kala baxayaan. qofka fiican oo iyo qofka xunna miday ku kala baxaan labadaa way. aldhaalimu min almadluum, dhaalimkii iyo madluumkii, midkii wax dulminay kii la dulminaya labaday ku kala baxayaan labadaa way. ayib, culuwu lmu'min, halkaana sheekhu wuxuu ku sheegayaa macluumo kale oo ciwaan looga dhigay sareynta mu'minka. mu'minku isagaa mar walba sareeya. rabbi wuxuu yihi subxaanah, waantum alaclawna in kuntum mu'miniin walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum alaclawna in kuntum mu'miniin. ha daciifina oo ha murgina, idinkaa sareeya mu'miniinay. mu'miniinta haddaad tihiin idinkaa sareeya mar walba. haddaba addoonku qofka falilcabdi min alculuwi bixasabi maa macahu min aliimaan baa layidhi ibnu qayim. addoonka sareynta la sheegi marba wuxuu haysanayaa inta uu iimaankiisu dhan yahay. ilan iimaanku yaziidu wayanqus baa la yidhaahdaa. yaziidu bidaaca, daacada wuu ku ziyaadaa. wayanqusu bilmacaasi, macaasida wuu ku nusqaama. marka inta qofba iimaankiisu dhan yahay qadarkaasay sareyntiisa uu sareeyana noqonaysaa. haddaba aayaddan waxaa la yidhahdaa waxay ahayd tacziya tasliya, waxaa la yidhaahdo samirsiin. asxaabu rasuulillaahi ayaa la samirsiinayey wixii soo gaadhay dhaawac iyo dil dagaalkii uxud ka soo gaadhay baa marka lagu samirsiiyo waxaa la yidhaha fa antum alaclawna, idinka ayaa sareeya, yacni aldaahiruun, idinkaa guulaysanaya. waficlan muslimiinta ayaana mar walba ugu dambeyntii guulaystay. idinka ayaa guulaysanaya, idinkayna ciribta dambe idiin sugnaatay oo maaragtay reereynta iyo wanaagga helay. sidaa waxay noqonaysaa qofka haddii uu ka run sheego oo iimaanku, muslimiintu markii ay guulaysan jireen oo dagaalada iyagu ay ku gacan sareeyeen oo islaamku uu fidayey oo laga haybeysanayey oo magaalada kale ay maalinba midig gacantooda ay soo gelaysay, ay boqoradu ka haybeysanayeen, ee diinta loo bandhigayay, ee rasaaisha rasuulku iyo warqadaha kala diri jiray oo odhan jiray yaa hebel
aslim taslim, yacni soo islaam waad nabadgeli waa lagu daynayaa, ee soo islaam. nin dhan oo boqor ah oo waddankiisii haysta oo carshigiisii iyo kursigiisii ku fadhiya waa intii wiil yar loo diro dhalinyaro oo dhuuban oo gaaja ay dishay oo isaga dhan saa u dhecdhacaya loo diro, ayaa ninkii oo fadhiya oo boqortooyadiisii dhex fadhiya oo ciidankiisii fadhiya baa inta u tago baa wuxuu leeyahay soo islaan oo islaamka soo gal waad nabadgeli. marka waa hadal aad u cajab badan, laakiin dee qofkii caqli ilaahay siiyo na wuu garan karaa hadalkaa meeshu u socdo. qofkii kalena waa kibri oo qaarna waa kuwii warqadihii rasuulka jeexjeexayay, mazaquuhu, rasuulku wuxuu yihi mazaqahumullah, mulkigooda iyo boqortooyadooda ilaahay iyagana ha kala jarjaro. rabbina waa kala jarjaray sidii boqorkii faris oo kale. qaarna way hibaysteen oo hadiyad bay soo direen oo maaragtay qaarna sidaas. marka almuhim, markuu qofku islaamku haybad leeyahay oo dadku cize ay leeyihiin oo sharaf ay diintooda ku leeyihiin, bay ummaduhuna ka haybaysan. ilaahay cizigii muslimiinta u soo celiya wuuna soo noqonaya laa maxaalata biidni illahi tabaaraka wa tacaala. jazaakum allahu khayr, baaraka allahu fiikum.